waxa ay u dileen si xun oo welibana bilaa naxariis ah hooyadood ayay nafta dhaafiyeen dhiig wuxuu ahaa mid guriga oo dhan ku daadsan oo welibana sida muujada u qulqulaya labada hablood ee mataanaha ah hooyadood waxa ay la dhacayeen mindi welibana sida oo kale waxa ay dusha kaga shubeen dhari kulul oo markaas dabka laga soo qaaday waa ay qanqaniinayeen iyagoo welibana sidii maska madaxa uga dilaya hooyadood mindi ay jidhkeeda dhinac kasta ka gelgeliyeen iyagoo si bahalnimo ah welibana u qanqaniinaya hooyadood waa qisadii cajiibka ahayd ee labada hablood ee mataanaha ah Jas iyo taas dhacdadani waxa ay ka dhacday Mareykanka laba hablood oo mataana ah 16 jir ahna ayaa hooyadood dilay waxa ay dileen hooyadood oo welibana si xun ayay u dileen daawada haddii aad rabtid qisadan in aad dhamaystirato fadlan muuqaalkan ha ka ilaawin inaad like saarto sida oo kalena aad share garaysid si aad ula wadaagtid asxaabtaada qaaliga ah waa anigoo ah Nadra Siciid Jas iyo taas waa laba hablood oo mataana ah dilkan markii hooyadood u geysanayeen waxay ahaayeen 16 jiro maalin maalmaha kamid ah ay hooyadood hurdadii ka toosisay Jas iyo taas iyadoo kule wad habsaanteen iskuulka taga labada hablood ee mataanaha ah waxay u ekaayeen qaar ka xanaaqsan hadalkaas iyo welibana hurdada ay ka kicisay hooyadood mataanuhu markii ay kaceen waxay u sheegtay inay cuntadooda ama si dheriga kala soo baxaan shoolada Jas ayaa aad u xanaaqday oo tiri oo maanta ma waxba noo dirdirsanaysaa intaad hurdadii naga kicisay si xun ayay hooyadeed ula hadashay oo welibana bila ixtiraama hooyadood Nikki waa ay xanaaqday iyadoo welibana uga hanjabaysa kuna leh gurigan amarkayga ayaa ka soconaya hadalna iguma soo celin kartaan cuntada kala soo baxa shoolada oo taga iskuulka waxa dhacday in ay isku buuqbuuqeen oo welibana mataanuhu ku qaliyeen hooyadoodna xanaaqday iyadoo u hanjabaysa iyaga si xun oo welibana aad iyo aad u qaab daran ayay hooyadood uga hanjabayeen welibana iyagoo caayaya labada hablood ee mataanuhu waxay u ekaayeen qaar isku hilinaya oo welibana hooyadood wax kasta ku odhanayay hooyadood Nikki waxa ay u muuqatay mid aad iyo aad u xanaaqday kadib waxa ay soo qaadatay mindi agteeda taalay laakiin may ahayn mid caruurteeda ku dhufanaysa mindida kaliyaata waxa ay rabtay in ay kaga cabsiiso si ay uga daayaan hadalka badan iyo qaylada buuqaas iyo dagaalkaas faraha badan waqti xaadirkan waxa uu ka dhacay kijada oo kijadii wada joogeen Jas iyo taas waa mataanihiya may noqonin mid hooyadood ka xishooda ama se ka gambada waxa ay sameeyeen oo ay isku dayeen in ay hooyadood wax ku dhuftaan ama se nabar kaga gaarsiiyaan Jas ayaa waxa ay la soo booday dherigii shoolada dul saarnaa ama se shoolada ku jiray kadibna waxa ay ku dhufatay hooyadeed oo ay ku rogtay dherigii oo dhan hooyadood waxa ay noqotay mid run ahaantii gubata ama se dusha sare ka mudmuudhay waa ay xanuunsatay oo xanuun ayay dareentay iyadoo ku qaylinaysa maxaad samaynaysaan mindidii ayaa ka dhacday isla markiiba waxa ay ku fikireen mataanuhu haddii hooyadood mindida ay qaadato in ay dili doonto kadibna iyagii ayaa mindida qaatay oo kaga horeeyay hooyadood waa ay dagaalantay welibana iyadoo iska celinaysa amase iska qabanaysa midi waxa ay kaga fadhiisatay caloosha iyo madaxa mid kalena lugaha ayayba joogtay waxa ay isla tegeen qolka fadhiga oo welibana dagaalku bartaa ka sii socday iyagoo hooyadood mindida meel kasta iyo dhinac kasta ka gedgelinayay sida oo kalena waxa ay samaynaysay dherigii cuntadu ay ka daadatay oo ay dusheeda ku shubeen ayay la dhacaysay hooyadood Nikki waa laga awood batay ama si waa ay ka xog bateen sababtoo ah midna lugaha ay qabatay midna xagga sare ayay ka joogtay awood ayay yeelan kar weyday kadib waxa ay miceen baday in ay qaniinto kolbatii u dhow oo mid ay laabta ka qaniintay kadib markii ay xanuunka dareentay ayay intay booday hooyadeed madaxa kaga istaagtay si arxandara ah ta kale ee lugaha haysay iyaduna waxa ay samaynaysay mindi ayay gelgelinaysay waa ay qaniineen welibana iyagoo mindi gelgelinaya waxa ay ka jabiyeen lafdhabarka waxa ay kaga tunteen sida oo kale madaxa hooyadood qofka waxa ay ku samaynayaan oo welibana sidaas oo dhan ay u dilayaan waa hooyadood oo dhashay soona korisay jidhkeeda meel kasta ayay ka qanqaniinayeen waa ay feerfeeriyeen wax kasta oo agtooda yaalay ay la dhacayeen kuna dhufanayeen hooyadood Nikki waxa ay noqotay mid dhiigeedu qulqulo sida mawjada run ahaantii waxa ay noqotay paralyze ama se may awoodeyn in ay dhaqdhaqaaqdo laakiin weli naftu waa ay ku sii jirtay
marka ay arkeen in ay ka adkaadeen oo welibana ay dileen ayay jiideen waxa ayna ku dhex rideen barkada biyaha lagu qubaysto barkadii loogu talagalay in lagu maydho amase lagu dabaasho ayay hooyadood ku dhex rideen waxay u ekaatay barkadu mid wada dhiig ah oo isla markiiba waa ay isbedeshay gurigii oo dhan waxa uu noqday mid dhiigu qulqulo meel kastana dhiig ayaa lagu arkayay fara badan intaa kadib maxaa dhacay jaas iyo taas waa mataanihii 16 jirka ahaa waa ay qeylqeyliyeen waa ay ooyeen markii dambena iyaga ayaa murmay maxaa samaynaa ayay yidhaahdeen waxa ay isku dayeen in ay gurigoo dhan nadiifiyaan oo ay qariyaan hooyadood laakiin haddana waa ay ka walaaceen arrinkaas aad buu u dheeryahay waanu ku adag yahay waxa ay keeneen qorshe kale waxa ay yidhaahdeen oo maanu ka dhex baxnaba guriga oo dhan si aanu u noqono dad aan dembi gelinba arrinkaas ayay ku dhaqaaqeen waa ay maydhmaydheen oo jidhkoodii oo dhan waa ay nadiifiyeen waxa ay xidheen dharkii iskuulkii ayay u lugeeyeen sababtoo ah baskii mar hore ayuu ka tegay oo waxa ay doonayeen in ay iskuulka yara tagaan kana soo noqdaan si hadhow toole baska ay u soo raacaan sidii ayay sameeyeen iskuulkii bay lug ku tegeen markii dambena baskii iskuulka ayay soo raaceen markay guriga yimaadeen waxay ahaayeen qaar filin jilaya aad bay u ooyeen una qayliyeen iyagoo ku dhawaaqaya hooyo nala hadal maxaa kugu dhacay isla markiiba waxa ay la hadleen booliska oo booliskii ayaa u yimi iyagoo jahwareersan ooyayana waxa ay yidhaahdeen iskuulka ayaanu ka nimid waxaanu nimid gurigii oo wada dhiig ah run ahaantii waxaanu aragnay hooyo oo barkada lagu dhex riday barkadii biyaha oo isku bedeshay midabka cas ee dhiiga booliskii ayaa markay isla markiiba albaabka sidaa u fureen waxa ay yidhaahdeen waxaanu urinay ur aad iyo aad u xun dhiiga birta ah ee naxaasta ah markaasna hawada ku jira ee dhammaanba gurigoo dhan qabsaday iyo welibana waxaanu aragnay dhiig fara badan oo qulqulaya daadsanna guriga meel kasta askartii aad bay u argagaxeen waxa ay yidhaahdeen dil sidanoo kale ah oo welibana dhiigu meel kasta sidan u daadsan yahay waa mid la yaab leh oo naxariis daran oo welibana argagax leh run ahaantii askartii waxa ay ka naxeen labadan hablood ee 16 jirada ah mataanahana ah ee welibana indhahooda ku arkay faldambiyeedkan aadka u xun ee hooyadooda loo geystay ooyayana askartii waxa ay baadhiyeen gurigii oo qol kastaba waa ay gelayeen labadii hablood waxa ay ka fogeeyeen guriga oo guriga agtiisa ayay geeyeen waxa ay u muuqdeen qaar jahwareersan oo ooyaya run ahaantii labada hablood dembi baarihii waxa uu bilaabay in uu weydiiyo su'aalo yaro kooban labadan hablood ee dhibanayaasha ah hooyadoodna laga dilay goorma ayaa timaadeen guriga ayuu ku yidhi waxa ayna yidhaahdeen waxaanu ka nimid iskuulka mar dhoweed ayaanu nimid waxaana aragnay markii aanu guriga soo galnay gurigii oo wada dhiig ah hooyena ay ku dhex jirto barkada iyadoo dhimatay oo aan nala hadlaynin labadii hablood waxa loo qaaday xarunta booliska si loo wareysto iyaga laftirkoodana maskaxdooda loogu dejiyo askartii amase dembi baadhiyaashii meesha joogay may noqonin qaar ka shakiya mataanahan kadib markii loo qaaday xarunta booliska iyadoo la rabo in la wareysto ayaa wax dhacday in la yidhaahdo noo sheega sideebay wax u dhaceen mid kastaba dhankeeda ayay ku ooyeysay markasta oo su'aal la weydiiyo iyadoo mid ka mid ah ay ku ooyeyso oo ay leedahay waxa aan doonayaa hooyaday waxa aan doonayaa ayeeyday tii kalena markay aragtay walaasheed oo ooyeysa waa ay u qaboojisay niyadana waa ay u dejisay iyadoo dhunkanaysa kuna leh isdeji qof adagna iska dhig waa la helayaa qofkii ka dambeeyay dilka hooyadeen ee welibana sida arxandarada ah u dilay mataanahani waxa ay jidhkooda oo dhan kusoo wada qariyeen galoofis amase dhar bay soo wada xidheen si aan loo arag xitaa gacmahooda askartii ayaa meydkii waxa ay ku arkeen qaniinooyin fara badan sidoo kalena xagtimo iyo welibana nabaro dusha kaga yaala meydkii waa la qaaday oo waxa la geeyey dhakhtarka si loo soo baadho loona soo ogaado qaniinyadan jidhka ku taala qofka uu yahay oo loo helo DNA-ga labadan hablood ee mataanaha ah waxa ay ka siman yihiin DNA-ga sidoo kalena waa qaar isku eg markastana isku dhar xidha oon laba kala garanaynin dembi baarayaashii waxay u ekaadeen qaar ka shakiyey labadan hablood ee mataanaha ah sababtoo ah guriga waxa ay ka dhex heleen qoraal ay qortay jaas oo ay u qortay saaxiibkeed waxa ayna ku lahayd anigu hooyo waan necabahay mana rabo in aan la joogo markasta waxaan ku yidhaahdaa dhimo laakiin waxay u eg tahay mid aan dhimanaynin oo soo taagan
qoraalkaas ayay ka heleen guriga markii ay baadhayeen kadibna waa ay ka shakiyeen labadan hablood niyadana waa ay u dejisay iyadoo dhunkanaysa kuna leh isdeji qof adagna iska dhig kadibna waa ay ka shakiyeen labadan hablood waxa ayna go'aansadeen in ay kala qol geeyaan si ay u kala wareystaan oo waxyaabo badan bartaa uga soo baxaan I don't think y'all did nothing. Why you say that? It seemed like it. Who said that? Well, it just seemed like how y'all was questioning us and something that seemed like y'all think we did. Let me see your hands and your arms. What happened here? I got into a fight. Did you get in a fight with her? waa la kala saaray labadii hablood ee mataanaha sida oo kalena waxaa laga codsaday in ay gacmahooda ka faydaan dharka si loo arko in wax nabara ah ku yaalaan waxayna arkeen xagtimo iyo welibana qaniyo fara badan oo welibana markaas cusub waa ay weydiiyeen waxayna tiri walaashay ayaan isdagaalnay waxa ayna go'aansadeen in ay kala qol geeyaan si ay u kala wareystaan oo waxyaabo badan bartaa uga soo baxaan sababtoo ah intii wada joogaan waa qaar awood leh iskuna dayanaya ku adkaysanayana hadalkooda shakigii dambi baariyaashu waxa uu noqday mid dhab noqda welina waxa ay ku guda jiraan sidii ay cadeymo fara badan u heli lahaayeen una sii baari lahaayeen daawade qisadani waa mid aad u dheer waxa aan jeclaystay in aan idinka dhigo 2 qaybood fadlan la soco qaybta labaad ee qisadan waad ku mahadsantahay haddii aad nala joogtay ilaa iyo dhammaadka muuqaalkan si aad qisadan u daawatid qaybta labaad fadlan follow the page-ka haddii aad naga daawanaysid dhanka Facebook-ga haddii aad naga daawanaysid dhanka YouTube-kana nagu soo bir adigoo subscribe odhanaya si aad ula socoto qisada qaybteeda labaad daawade muuqaalkan ha ka ilaawin inaad like saarto sida oo kalena asxaabtaada la wadaagtid adigoo u sheer garaynaya la soco qaybta labaad ee qisadan